waxaan soo dhaweynayaa Sheekh Xuseen Cali Jabuuti ila soo dhaweeya شيخ هلا سو دويو بارك الله فيكم. تفضل شيخنا. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق التمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إلهي بان mahadnaqaynaa kulanka diineed inaga soo qayb galiyay annagoo ka kala imanay meelo kala duwan, meelo kala fogfog, waana tawfiiq ilaahay caza wajal qofuu khayr la doono ayaa ilaahay meelahan oo kale ilaahay uu keenaa. inaad diin aad ka hadashaa oo diin aad dhegaysataa oo meel diin lagu hadalhaya aad tagtaa, adiga xaggaaga maaha, waa xagga ilaahay. waa inaan ilaahay dhammaanteen aan u mahadnaqno weeyaan. oo nimanka walaalaheena ee akhyaarta ee nagu dadaalay ee kulanka inoogu yeedhay, ayakana waxaan ilaahay uga rajaynaynaa ilaahay camalkooda inuu ka aqbalo, miisaanka xasanaadkana ilaahay uu ugu daro. kolley culammadu waynala hadleen, waanala hadli doonaan. diinta hadalkeeda oo dhanna wuxuu ku soo dhammaadaa waa ilaahay ka cabso. ilaahayna cibaadadu inoo abuuray, cibaadada qaayaheeguna waa alla ka cabsi. yaa ayuha nnaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waaladiina min qablikum lacallakum tattaquun baa ilaahay yidhi. dadkao dhan baa ilaahay la hadlayaa, wuxuu leey dadow ilaahayna abuuray caabuda. ininkoo keliya maaha, macal kuwii inaga horreeya adduunkan imidayna ilaahay unbaa abuuray. khaaliqu waa mid keliya, makhluuqu ha fara bataan oo ha nuucya bataan, laakiin khaaliqu waa mid keliya. cibaada ilaahay noo abuuray inaan isaga caabudno, oon isaga ka cabsoonno, oon isaga weynayno, oon isaga jeclaanno. cibaadada qofku markuu la yimaado waxau ka dhaxla waa alla ka cabsi. alxaju ashhuru macluumaat, faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj, wma tafcalu min khayri yaclamuhu allah, watazawaduu faina khayra zaadi taqwa. xajkii axkaamtiisii baa ilaahay kaga soo warramay aayaddaas. waxaa lagu soo gabagabeeyey xajka qaayihiisu waa alla ka cabsi, cibaadada qaayaheegu waa alla ka cabsi, soonka la soomayo qaayihiisu waa alla ka cabsi, sadaqada la bixinayo qaayaheegu waa alla ka cabsi, kulankaa diinada laynoo qabtay iyo culummada nawcadinaysa qaayuhu waa alla ka cabsi. ilaahayna abuuray inaan ka cabsanno oon ka baqno unbaa adduunka laynoo keenay. ummadii hadday dumaysana waxay ku duntaa waa marka ilaahay abuuray ay garan weyda ummadii way dumi. ummad haddii la doono in la dhisana waxaa lagu dhisaa allihii abuuray baa dadka la baraa. dad haddaad aragto dad ilaahay garanaya oo ilaahay jecel oo ilaahay ka cabsanaya oo ilaahay rajaynaya oo ilaahay rumaysan oo ilaahay mar walba inay raalli geliyaan ku dadaalaya haddaad aragto, dadkaasi way dhismayaan. dad haddaad aragto ilaahay aanan ka cabsanaynin
waliba malaynaya ilaahay inuusan arkaynin markay dunuubta ay samaynayaan waxaad ogaataa mujtamacaasi uu ku daayo uu dumay ka dhigan tahay lidaalika nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ummaddan markuu nabigeenu uu dhisaayey meesha uu ka soo bilaabay dhismaha dadka ayuu horta ilaahay baray taajirkii buu ilaahay ku xidhay faqiirkii buu ilaahay ku xidhay xaakimkii buu ilaahay ku xidhay haweenkii buu ilaahay ku xidhay dhallinyaradii buu ilaahay ku xidhay mujtamaca wuxuu nebi maxamed uu diyaariyuu hagaajiyey la dareen geliyey oo laga dhaadhiciyey ilaahay baa ku leh waxaad haysatana ilaahay baa ku siiyey waxaa kaa maqanee 10 sano alla uunbaa kuu haya ilaahayna waa kuu jeedaa uu ku arkayaa uu ku maqlayaa ee ilaahay ka cabso innagu haddaan dadka luqada soomaaliga ku hadla aan nahay wadaad markuu ina wacdiyeen uuna yidhaahdo ilaahay ka cabso waxaa laga yaabaa jawaabta inaan keenna markiiba sownaka ilaahay ka cabsanna ma ilaahay haddaan ka cabsoonayno been ma sheegneen ilaahay haddaan ka cabsoonayno salaadu inama dhaafteen ilaahay haddaan ka cabsoonayno dulmi ma geysaneen ilaahay haddaan ka cabsoonayno dadka ma xamaneen ilaahay haddaan ka cabsoonayno ummadda iskuma dirneen ilaahay haddaan ka cabsoonayno dhallinyaradu siday rabto uma socoteen sida ilaahay rabaan u socon lahayn haddaad ilaahay garanaysid waxaad ogaan lahayd macaasi kuma dhacdeen cabsida ilaahay waa freem gaadhigu hadduu bilaa freem uu noqdo meel walba uu jiidhi qofku hadduu alla ka cabsi uunan lahayn meel walba uu jiidhi taqwadda ayaa nolosha bini aadanka qurux badnaysa waman yattaqi allaha yajcal lahu min amrihi yusra wafalii qofka ilaahay ka cabsadee rabbigii ka baqa nolosha dhanba ilaahay waxuu uga dhigayaa fudayd buu ilaahay uga dhigayaa maanta dad badan baa nolosha ka cabanaya oo nolosha waa nagu adayg waxa nolosha adkaynaya waa iimaan la'aan waa alla ka cabsi la'aan waa diinta oo laga dheeraadaan nolosha ku adkaataa hadday dadku ilaahay abuuray u dhowaadaana ilaahay xidhiidh fiican la yeeshaan oo ilaahay casa wajalla ay ka cabsadaan nolosha inta kaleo dhanna way noo dhib yaraan qawaamu ddunyaa 4 cilmu alculamaa wa cadlu alumaraa wa sakhaa'u alaghniyaa wa ducaa'u alfuqaraa lowlaa cilmu alculamaa lahalaka annaasu baa la yidhi lahalaka aljuhaalu walowlaa cadlu alumaraa laakala bacduhum bacda walowlaa sakhaa'u alaghniyaa lahalaka alfuqaraa'u walowlaa ducaa'u alfuqaraa lahalaka alaghniyaa adduunka dhanba waxay culimmadu yidhahdeen 4 bay ku taagan tahay 4 tiir cilmiga culammada iyo cadaaladda madaxda iyo deeqsinnimada dadka maalqabeennada iyo ducada fuqaradu ay ducaynayaan 4taasee adduunka dhanba uu ku taagan yahay cilmu alculamaa caalimka cilmigiisu inuu ina anfaco waa inuu caalimku noqdaa caalim ilaahay ka baqayo khashyo leh innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa cadlu lumaraa madaxdu inay cadaalad samayso waxay u baahan yihiin inay ilaahay gartaan marka u horraysa hadday ilaahay ka baqaana ilaahay ay gartaan cadaalad bay la imanayaanoo way cadaalad samaynayaan hadduu qofku ilaahay uusan garanayn cadaalad samayni maayo dulmi baa noloshiisa ka soo bixi haddii ninka maalqabeenku ilaahay uunan ka baqayna xoolaha wuxuu moodi isagu inuu cilmigiisa uu ku keenay qaala innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii qaaruun calayhi lacna ayaa lagu yidhi sakada xoolahaaga ka dhiib wuxuu yidhi xoolahan nebi muuse uu bixi uu leeyahay aniga xoolahan ilaahay ima siina aqoon iyo karti anuu aan leehay ayaan xoolaha ku keenay buu yidhi qofku hadduu alla ka cabsi uunan lahayn xoolihiisa wuxuu u malaynayaa inuu karti uu ku keenay hadduu laakiin ninka maalqabeenku alla ka cabsiyo iimaan uu leeyahay waxa uu garanayaa nicmaddan ilaahay inuu u dhiibtay deedna lagu eeganayo la eegaya meeshuu ku bixinaya meesha kale deedna xoolihiisii meesha wanaagsan buu ku bixinayaa faqiirku hadduu ilaahay ka cabsoonayo faqiir wuxuu noqonayaa cafaafle oo dhowrsoon oo baahidiisana bini aadanka ka qarsanaya buu noqonayaa haweenku hadday ilaahay ka baqaan noloshoodoo dhan baa toosaysa cahdigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam gabadhii reer madiine ayaa nebigeenna u timid haweenay reer madiine ah markaa bay nebigeenna ku tiri nebi allow dembiba aniga iga dhacay
dembiga iga dhacayna wax kala maahayna xumaan baan la yimiday calooshaydiina ilmo ayaa maaragtaanay ii galay bay tidhee aniga xadka in lay maryaan hadda diyaar u ahay aakhire in laygu cadaabo diyaar uma yihi dembigaan galay adduunka in laygaga gooyaan diyaar u ahee dembiga iga goobay ku tidhi gabadhaasi askari ma soo qaban cid dembigaa markay samaynaysay arkaysay oo soo sheegtayna ma jirine iimaankeygii alla ka cabsigeeda ayaa keenay oo mujtamacay ku dhex noolayd ee mujtamaca madiine ku noolaa ayaa ahaa mujtamac ilaahay ka baqaayo ku xisaabtamaya ilaahay baa ku arkaayo ilaahay baa ku maqlaya tuugu markuu rabo inuu waxado hadduu ilmo yar u jeedo dembiga uu ku socday uu ka joogsan wuxuu uga joogsan ilmaha yar baa maaragtaane ku sheegi buu leeyahay kii xumaanta iyo macsiyadda doonaya inuu sameeyo hadduu arkay ilmo yaroo ag taagan oo arkaayo u jeeda waxa uu leeyahay ilmaha yar baa sirtaada sheegi ilmaha yar buu markaa ayuu ka cabsoonayaa inuu sirtiisa uu sheego haddii qof uunan meeshaa joogin waxaa laga yaabaa tuuguna tuugada uu ku dhici lahaa zaaniguna zinada uu ku dhici lahaa marba haddaad ilmo yar bay arkaaya dembiga inaad ku dhacda aad uga joogsatay ilaahay bay arkaayana dembiga aad uga joogsan weyday waxaad ogaataa waxaad ka dhigtay allihii ku abuuray kuwa wax eegaya ka ugu liitaad ilaahay ka soo qaaday markaas mujtamac madiine ku noolaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku barbaariyey oo la baray ilaahay baan qof walba u jeeda ilaahay baa ku arkaayo ilaahay baa ku maqlaaya leanna markaasaa mid walba noloshuu ku noolaa waxaa dhacday markaa ilaahayna inuu ka cabsoodo allihii abuureen inuu ka xishoodo kii miiga joogaa dhacday ilaahay inuu ka xishoodo ka cabsoodo kii magaalo jooga hadduu dembi sameeyo waxaa dhacday inuu markiiba nebiga intuu u yimaado sida haweenayda ay yidhaahdaan nebi allow dembigaasaa iga dhace aakhire anigu diyaar uma ihiyo cadaabka aakhire ma xamili karaye adduunka ha laygaga gooyo haweenayda nebigu sal alla alay slam wuxuu yidhi aabbaha iigu yeedh aabbaheed bay u yeedhay markaa buu nebigu uhi gabadhan si fiican u hayo oo dhaqaale ceebteedana ummadda ha u sheegin maalinta ilmaha ay dhashana ii keen buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam leanna markaaba ilmihii iyadoo wadatay nebiga u timiday haddana celi buu nebigu yidhi ilmaha soo nuuji markaad soo nuujisee naaska aad ka gudhiso haddana adiguna markaa ii soo noqo ii kaalay ilmaheygii oo cunto cunaaya ayadoo weliba tusinaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilmahaasi inuu haddeetoole iskii cunto uu u qaadan karo ayay nebiga u keentay u timiday markaa buu nebigu yidhi iyadii ilmahayga kala qaada waa la kala qaaday tiirkaasaa lagu xidhay ayadoo dharkeedii qabta ayaa dhagax lagu dilay waana sidii sharcigu ahaabaa la mariyey salaataljanaasadeedii markuu nebigu yidhi ha ku tukatid ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cumar baa joojiye oo ku yidhi ma zaaniyadan zinaysatay ilmahan dhashay waad ku tukanaysaa nebi allow markaa buu nebigu yidhi yaa cumar gabadhaasi way toobad keentay toobad 70 inuu reer madiina haddii loo qaybiyo ku filaan lahayd buu rasuulku yidhi cid soo qabatay ma jirto laakiin halkana kamera ugu rakiban tahay waxaa laga dhaadhiciyey ilaahay uu ku arkaya uu ku maqlayaa aakhirana waa lagu xisaabin doonaa aakhiradii baa ku weynaatay qalbigoodii ilaahay baa ku weynaaday qalbigoodii leanna markaasa waxaa dhacday qof walba inuu markaa noloshii adduunka ilaahay uu kaga cabsoodo mujtamac hadduu ilaahay ka baqo waxay helayaan nolosha adduunyadu jannay noo noqon nolosha adduunyadu jannay noqonaysaa goormay janno ku noqon waa marka dadku ay ku noolaadaan diin markay ku noolaadaan alla ka cabsi markay ku noolaadaan xishood markay ku noolaadaan ilaahay bay arkayo ee maqlaaya markuu qof kastoo muslima uu garto cid dadka dulmida ayaa la waayi khilaafadii cumar bnu khadaab abubakar sidiiq radia allahu canhu markii abibakar talada ummadda loo dhiibay ayuu abubakar qaadiyulqudaat waxau ka dhigay cumar bnu khadaab buu ka dhigay 6 bilood markuu booskaa uu hayo waa maxkamadda qaadiga ugu sarreeyey ayuu cumar soo celiyey shaqadii marka abubakar buu u keenay maxaa dhacay buu ku yidhi yaa amiira yaa cumar ma shaqadan kuu dhiibay baad yaraysatay may shaqadaad ii dhiibtay waa shaqo weyn laakiin abubakar oo waxaan kuu sheegayaa 6 bilood ee halkaa aan fadhiyey 2 qof oo ishaysatay iima iman ummaddani xaqii ilaahayna way garatay xaqii dhexdooda yaalayna way garato way ilaalisay xaakim ummaddan ilaaliya uma baahnee cabsida ilaahay ummaddani ay ka baqayso ayaa mid walba xaqiisii ilaaliye shaqadan iga qabsa buu yidhi waad i caddilaysaaye ummad halkan ay ka duntaa waxa weeyaan waa qiyamka akhlaaqiga iyo iimaaniyaadka haddaad aragtid mujtamac ilaahay ka xishoonayn kana cabsanayn
siday doonaanna u dhaqmaya haddaad aragto wuu dunsan yahayba mujtamacaas mujtamac jira maaha haddii sifaadka daakhiliga ee gudaha bini aadanka kaga jiray cabsida ilaahay ay ka mid tahay mujtamac ay ka baaba'aan qiyamka daahiriga muuqaalkuna waa ka dumaya si walba سادرتيد بان نبينا عليه الصلاة والسلام صدح سنضود أمده وحو كسو دسي إيمانياتك ولبا سرا طبان سنة النبي أمده وحو كدسي إيمانياتك علنا صدح يطبان كاسنا وحياة مكية بلدنا قرآن كمكة كسو دقي نبينا عليه الصلاة والسلام انتم مكة جوغينا أمده وحو كدسي إيمانك يا عقيدة لغا صحيي صدح يطبان سنة ومكة لجوغي صون يا زكو يا صدقات يا حج يا حجاب أحكام تاسي وأحكام مدنية مدينة كسو جكتي دادكي شريعة الإسلام كحنبارا دين تنمارك تاني قرانا يقيمه هيغا أيو نبي محمد مكين توجوغا أيو صور دسي يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قيل ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت وحادوب النبي عليه الصلاة والسلام واقع ما أنت أن تاجنهي أي نبي محمد أفر يطبن قرن كهر أي نبي جانو كسي والرمي أوليه وحادوب النبي أوليه إيماني دونتا حلي داتكو مركي عنتاد أي عون يا سيدة حيادة أي دوشيد أوكو كلمان أي هريرها أوكو صوف فريستان إن عدو قدن عوال بين نجاجي ما دا إيماني دونتا برسولكو يدي صحابي كميدا صحابة سركو يدي maalinta acdaada islaamku ay dhinac walba naga soo fadhiisan doonaan ee sida xeedha loo cunay loogu ururo ay noo cuni doonaan miyaan yarnahay nebi allow maalinta ma tira yariba markaa buu nebigu uhi may maalinta waad badan tihiin buu nebigu uhi waad badan tihiin laakiin xun baa tihiin buu daad xoor baa tihiin daad xoor waxaad macno leedihiin ma jiro markaasuu nebigu uhi walaa yanzicanna allahu weliba ilaahay uu ka siibi oo uu ka siibi muxuu ka siibayaa cadowgiina laabahooga haybadii ay niga haybaysan jireen waa laga siibi buu nebigu yidhi ininkana wahni bay nagu dhici doona wahni markaasay yidhahdeen asxaabtu wahniga noo sheeg haddana waa maxay wuxuu yidhi adduunyada ayaad jeclaanaysaan dhimashadana waad dhibsanaysaan buu rasuulku yidhi inaad noolaataan baad jeclaanaysaan inaad raaxaysataan baad jeclaanaysaan inaad iska ciyaartaan baad jeclaanaysaan dhimashada iyo aakhirana waad karhaysaan buu rasuulku yidhi labada cudur maalintu inagu dhacana waxaad noqonaysaan buu nebi maxamed ina leeyahay waxaad noqonaysaan xumbadan daadka ayaad la mid noqonaysaan u qiimama lihidin xumbada daadku markuu yimaadana wax buuran weeyaan xoogaha yar kadibna dabayshu markay timaadana way baaba'daa waxaad tiradiinnu waa badan tahay weeyaan cadadkiinnu ma yaro cudadkiinnu ma yaro dhaqaalihiinnu ma yaro kaantitee xagga tirada waad badan tihiin laakiin kayfiyadda xagga tayadiinna yar bay ka dhigan tahay ilaahayna tiro badan eegi maayo dadka ilaahay waxau eegayaa iimaaniyaad kale dad ilaahay ku xidhan baa ilaahay eegayaa kam min fi'atin qaliilatin غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وجماعة طالوت في سورة البقرة أيا إلهي جل وعلا أو كجور مجلسك أودن بيا وحي هاي سيدتهم كم بي هايان بقر جوجي طالوت أيا كوك أسبان إن جهاد أوبحان إياكونا تربية دوبين أونا مارك تاني قسمين أيا إلى النصار أو نصار دنا مركاسو كرهم بمركا كوبحي uu kaxeeyey markay bannaanka ay marayaan meeshii gaalada dagaalka ay ku galayeenna weli aanan la gaadhin ayaa waxaa hortooda ka soo baxay webi biyo ah webigaa biyahee soo baxayana weliba boqorka u sheegoo ku yidhi ina allaha mubtaliikum binaharin faman shariba minhu falaysa minii waman lam yatcamhu fainahu minii
إلا من اغترف غرفة بيده هرتينا وبالدردر وحريدا أيا كسو بحدونا قفك بيها عبا أنيقا كاسي الراعي ما يويقا هاري كمر قاتا هنغوريقا كوكوينا ومعايقا كبيها إساقو آنا ندمين حقي جهاد كدعي لها الراعي السعودنا كاسنا وجماعة ديدو كمدي هايبو يدي وحالله شيء إني صدح قيبادو كالبحي دونان قول بيها الضل فريستا ومادة أي آمين ينويا معنه مشاهدات وحي أركيان بين رومينيان قولوا ماركتان بيها قادنا يسمر كليا وهنغوريغا ونكو قويني دونتا قولوا صدحات أوله ما بيهن أونك ما بينيان أونك إلهي با كيني إلهي بانا بيني أنكو هالكو دقالكو كدع إلهي بان ودقاقينا وجهاد كان قلينا بي أورانيان صدح دا قولي وكلا بحيان قرآن كان إلهي كو شيغي سيدي لو شيغي با دعدي بيهي با صوبحي هرتودا يكو أومن جماعات دي ugu horeysay waxay yiraahdeen biyahani waa makhluuq oonka inay biyaan ilaahay amarkiisa u baahan yihiin deedna biyihii waa iska dhaafeen iyaku qoladii labaad iyaku waxay yiraahdeen hal mar baan qaadanaynaa guriga dhuuniga ayaan ku qoynaynaa deedna waan dhaafaynaa iyakuna way socdeen qoladii saddexaad waxay yiraahdeen biyahana oonka biinaye si fiican biyaha horta uga dhargibay sidaaden markaas deedna biyihii bay cabbeen mar alle markay cabbaan علوشودي أي سليهم بيه علوشادي سفي عم بأوجلن وحاد عذا مركا إن ماركتاني إير لبت الله مركا قادم بأونكا كوزيادة هذا نوع صون نقدان ويعبان وعيد هذا أونكي بان نجباي إير مركا السعودان هذا نوع حي أونكي بيأكوزو زيادة ويصون نقدان بل واحد أوفير ستا أديكو قف مان تودن بيا عبايا علوشي سنتين لك كانسا جماعة داسي هالكابي كوهدين وحنا لقوا قياسا لح يتضباطا كمبا اختبارك كود عدي ايه مسابستي افر كونو كليا افر تيكون والله با جماعه اسلا سعوتا قول بيها درستو هنغوريغا كو قويسي iyo qola tiri biyahan oonka ma biyaan oonka ilaahay baa biya anagu waa soconayna biyo ma cabayno marka Israaciil dagaalkii meeshii ka dhacay ay wada yimaadeen Jaalut wuxuu wata ciidan 200 kuna iyaguna waa 4,000 qof oo kaliya ilaahay tira ma eegayo ilaahay tayadu eegaya jamaacadii u horeysay biyaha soo ka batay waxay yiraahdeen qaalu la taaqata lana al-yawma bi Jaalut wa junuudihi waxay yiraahdeen ciidanka intan la eg 200 kun anagu maanta u jilib dhigi karamayna bay yiraahdeen walaakin jamaacadii yarayd biyaha aanan soo dhadhamin biyaha ka soo talowday waa 313 ay mufassiriintu ay ku sheegaan waxay yiraahdeen may kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah imisa aya koox yar ay ka guuleysatay koox tiro badan ilaahay idankiisana way ku guuleysatay ilaahayna mar walba waxa uu la jiraa dadka saabiriinta sabrka leh 313 kaas والنبي داود عليه السلام وكمدها أيا دجالك إنتي قلان رجعني ما يكون قلان جسني ما يكون قلان اعتماد على الله ما يكون قلان مشاهدات كين نفيين إلهي قدرة ديسا هي النظام كغيبك يكون حساب تمام وعيقرتين نبي دف إلهي باهيا إلهي تعلق إلهي لها ينبا وينا دجالك يبي قلان دنا إلهي قواس وجوشي وسيي مركا ولا ليال إلهي تربدا إلهي إيجا مايو إلهي وحو إيجا يا دتك مسلمين تا إيمانيات كوجا إلهي إيجا يا والله يحب الصابرين إلهي دتك صابرين توجعل يهي صابرين ما أنت ما نهي إن الله مع المتقين إلهي دتك تقوى دلو لجرا متقين ما أنت ميان نهي والله يحب المحسنين دتك سمفل كبدل له أيا إلهي مرول بوجعل يهي سمفل ما أنت ملا نهي وإن الله لمع المحسنين كوا محسنين تا خلقك إلهي إحسانك أصمية أيا إلهي معه جيهي وحا إلهي معين وكن غنيا وصفاتك ورموناك سويا هدان دونينا أمتنا دسنبي علمدو ليهين وحن كدسينا حق إيمانياتك حق أخلاقك حق علمك حق صبرك حق تقوض حق يقينك حق توكلك حق تلسارشد إلهي صفاتك أسه أمتي أي كل اسمان هدان أركت المجتمع
macaasida noloshoodu ay ku badatay macaasi maxaan ka wadaa salaad la'aantu waa macsiyo beentu waa macsiyo maaragtaane ballanbaajintu waa macsiyo xijaab la'aanta gabadha muuminadu ay soconayso waa macsiyo dadka muslimiinta hadday qabyaaladda ay islaamnimada qabyaaladda ka kormariyaan dadkaasi waxay ka dhigan tahay weligood horumar ma gaadhayaan maxaa yeelay islaamnimadu waa inay wax walba kala sarrayso ummad waxay ka dhisantaa waxa weeyaan waa sifaadka caqadiga iyo maaragtaane qiyamka wanaagsan ee akhlaaqda wanaagsan taasaan u baahannahay marka inaan soo dhisno intay doontahay naga qaadato qarni ha qaadato 50 sano ha qaadato 30 sano ha qaadato annaga lanagama rabo saqfiga inaan keenno innaga waxaa laynaga rabaa inaan seeska si fiican u dhisno wacada allahu aladiina aamanuu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وبلن موعود يا مطلوب باك لجر موعود إلهي وحا بلن قاضيا وحنا خلافة إلهي إنه دتك مؤمنين تقعنتوا ذا السوقلين وموعود إلهي بكو بلن قاضي وحو إلهي كو بلن قاضي هل كابو كويا لا شكي كما تاقنو إلهينا بلن كبح مايو بني هذا كبلن كبح الله ويقانا بلن باجن إلهي صفات كيس وحا كمدا لا يخلف الميعاد إلهي بلن هدو قاضو إلهي بلن كيس وابوحن لكن إنك وحالينا قربا أذيكي أنك وحالينا قربا إنان أساس نمارة مجتمع إيمان له عمل صالح عليه مجتمع إيمان له وحويا وأسبابها نمضة لقد نسو وإن كنا مجتمع إلهي كحرا مجتمع وإن كنا دين تودا انت أنا آخرا لقارين أدونك دوشي ذا كفايد سنايا صدح دين النبي قال الشيخ عليه الصلاة والسلام يكو صعوتاه أيا قد بوريد بي مركا أيي كقلين بلد دحان أما الروب أما عدو dhagax weyn baa markaa buurta ka soo shalwaday deedna buurta godkayga buu dhagaxii xidhay waa 3 nin halkaasay ku jiraan markaasay cid ku ogi meesha ma jirto ilaahay baa ku oga cid kale kuma ogo markaasay isla hadleen oo waxay sidhaadeen maanta halka cidini badbaadin kartaa ma jirto ilaahay mooyaane bal nin walow camalka aad isleedahay camalkaasa maalinta aad ilaahay dartii u qabatay oo maaragtaane camal saalixa oo ikhlaas ahaa aad isleedahay bal maanta ku alla bari buu halka camalka ha ka badbaadiyo maantaas kii horeeyba markaa ducada bilaabay waa camalku nin walba ugu rajo weynaa oo islaha camalkaas maqbuul hayo ilaahay ka aqbalay oo ikhlaas ahaa kii horeeyba ducadii furfurto wuxuu yiri yaa rab waad ogtahay laba waalid baan lahaa oo da'wa weyn labada waalid iyakoon caanaha siiyoon waraabiyo mooyaane ciyaalkayga cunto iyo caana ma siini jirin habeenada kamida xoolihii markay soo hoydeen een caanihii uga soo maalay ayaan caanihii la dul imiday waxaan arkay labadii waalid oo hurda ayaan arkay markaasaan gorofkii caanuhu ay ku jireen kor baan u qaaday ciyaalkayga iyo awlaadaydiina jilbaha ay haystaan waxay leeyihiin aabba caanaha nasii markaasaan ku idhi nisiini maayo labadayda waalid oo horta iyaka aan siiyo mooyaane iyakana kicini maayo ilaa iyagoo hurdada ka soo kaca mooyaane habeenka oo dhan baan la dul taagnaa gorofkii caanaha ubadkaygina lugahay haysteen waagii markuu dhawaaday inuu baryo ayay labadii waalid hurdadii ka soo kaceen markaasaan gorofkii caanaha iyo kii siiyey kadib baan ubadkaygii siiyey ilaahow maalinka haddaan labadayda waalid aan sidaa ugu yeelay inaan adiga kugu raalli geliyo ilaahow dhibaatada maanta aan ku jirno adaa naga saari karee ilaahow dhibtaa naga saar buu yidhi markaas rida rabbi fii rida alwaalidayn haddaad doonto ilaahay raalli inuu kaa noqdo labadaada waalid raalli geli addoon ilmo yar wiil iyo gabadh midkaa doontaa haw haddii labadaada waalid ay kuu cadhoonayaan waxaad ogaataa ilaahayna waa kuu cadhoone ogow haddii labadaada waalid raalli ay kaa noqdaan ilaahay baa raalli kaa abay ka dhigan tahay deedna markaa dhagaxii uu dhaqaaqay kii labaad baa la yidhi hay adiguna ducee isaguna ducadii buu bilaabay yaa rabbi waxaa jirtay gabadh ina adeertaya
وآذو قروح بدن gabadhaas inta oo jeer baan shokaansaday way iska kay diiday inaan xumaan u geysto beryaha kamida abaar baa dhulkii ka dhacday anigoo hanti badan haysta ayaa xilliga abaareedku ku soo hagaagay ayadoo baahan bay ii timiday markaasaan ku idhi waad ogtahay inaan aad ku jecelahay berina waad i diiday maanta baahi baa ii kaa keentee qolkaa ina geliyo daadna waxaan doonaan kugu samayni kadibna waxaad doonta xoolo anigu waan ku siini baahidii ii keentaa markaa gabadhii way iska ogolaatay baahi baa jirto abaar baa jirtay qolkii markaan la galay ee labadeeda lugood dhexdeeda aan fadhiistay halkaasna waa meel adag weeyaan ayay igu tidhi yaa ayuha rajul war addoonkan ilaahayow ilaahay ka baqo farjigayga xaaraan ha ku jabin bay igu tidhi xaaraan yaa markaan maqlay ilaahay ka baq markaan maqlay halkaasaan ka soo noqdoon ka kacay cabsidaadaan uga soo kacay maradii baan saaray iyadii daadna waxay xoola doonaysay oo dhan ayaan intoon u buuxiyey ayaan sabootiyey haddii maalinka cabsidaada halka aan ugaga soo noqday ilaahoo dhibaatada aan ku jirna maanta naga saar buu yidhi dhagaxiina uu dhaqaaqay kii saddexaad baa lagu yidhi adiguna ducadaadiiba hadhee ducadaada bilow isaguna ilaahay buu baryo wuxuu yidhi yaa rabbi waad og tahay addoon waxaan ahay dad badan shaqaalaysiin jiray dad badan baa ii shaqayn jiray maalin maalmaha ka mida markaan mushaarkoogii aan siisiinayay mid ka mida ayaa mushaarkiisii inuu qaatay iska diiday beri dambo abaari ay dhacday ayuu ii yimid uu yidhi war berigaa lacag baan kaaga tegay mushaarkaygiiyo mushqaayadaydiiyo isii markaasaan ku yidhi xoolaha maad arkaysaa waxaasoo geela waxaasoo lo'a geela kaxayso markaasuu farxay uu duceeyey yaa rabbi buu yidhi kiina haddaan addoonkaa kaa cabsoonaya ilaahoo dhibaatada adaa naga saari karee ilaahoo dhibaatada naga saar buu yidhi dhagaxii uu dhaqaaqay saddexdoodii iyakoo nabad qabay halkii ka soo baxeen ayuha almuslim diintaada hadday adduunka dusheeda wax ku tari weydo aakhare wax ku tari mayso ogow salaadaadu hadday adduunka ku anfacayn islaamnimadaadu haddaad adduunka ku cisoobayn iimaankaagiiyo taqwadaada haddaad adduunka dusheeda barakada iyo amni iyo cizi iyo gargaar ilaahay aad ku helaynin waxaad ogaataa diintaad haysatid waa suurada xaqiiqa maana diin xaqiiqaa doondoon waxa kulanka laynoogu qabanayaa laynoogu yeedhay wax kale maaha aniga iyo ininku waa wada simannahay waxaa suuragalay ininku inaad iga diin fiican tihiin waxay culammadu ayna leeyihiin diinta maanta waan haysannaa waa ku dhalanay diinta islaamka laakiin kuma dhaqanno seen diinta markaa ugu dhaqannaa inaan diinteenna ku dhaqanno waxaan u baahannahay mujtamac inaan soo dhisna diiniya ilaahay waxau nagula xidhiidhayaa innakana waa diin waxaan ilaahay gargaarkiisa ku helaynaa waa diin waxaan nabadgelyada ku helaynaa waa diin waxaan ku guulaysanaynaa waa diin ummadnimadu waxay ku dhismaysaana waa diin marka waqtigii laga qabtay kolley waa joogaa ilaahay cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka allah inoo barakeeyo dardaarankaasi insha allah waa inoo socon doonaa culimmaduna way nala joogaan aniga lafahanteedana dardaarankaasi waan siinayaa inaan dib iskugu noqonno oo qof walba ilaahay cilaaqaadka ula leeyahay inuu dib ugu noqdo waa dantayda waa dantaada waana danta mujtamaceenna amni iimaankana allah inoo ziyaadiyo cibaadadana allah inaga aqbalo kulankeenna kulankii awliyada allah ka dhigo dadkeennaga bukana allah inoo shaafiyo waxay kurbaysan kurbada allah ka faydo muslimiinta mustadcafiinta la laynayna allah u gargaaro sala allahuma calaa nabiyina muxamed